kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka galwareed ee Soomaali Channel qodobada subaxana waxa ugu waaweyn faahfaahinno laga helayo oday dhaqameed xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose Axmed Madoobe oo markan aad uga cabsi qaba talaabo ay qaado dawladda federaalka ah ee Soomaaliya shirkadii heshiisiinta galmudug oo shuruud adag lagu xiray qabashadiisa Puntland oo maanta u dabaaldegaysa 22 sano guurada markii maamulkaasi dhidibada loo taagay muddo kadib hoteelkii Kenya ay al-shabaab ku weerareen bilowgii sanadkan oo dib loo furay waa kuma ajnabiga shalay lagu maxkamadeeyay magaalada Muqdisho maxaa loo haystaa midowga Yurub oo dhimaya mushaarka ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya 130 sano jir sanadkan ka qayb noqonaya malaayiinta xaramka tagay ee xajinaysa iyo dhimashada wiil u dhalay hogaamiyihii al-Qaacida Osama bin Laden oo la shaaciyay hagaag daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee aad subaxan ku daawanaysaan barnaamijka galwareed ee Soomaali Channel markana qodobadii oo faahfaahsan waxa faahfaahinna dheeraad ah ay ka soo baxayaan mid kamid ah nabadoonnada ama odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose haatan xarun u ah maamulka Jubbaland Suldaan Rashiid Dhurre ayaa lagu soo waramayaa in magaalada Kismaayo uu ugu geeriyooday dhaawac loo geystay isaga iyo laba qof oo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in suldaanka uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas uu qof hubeysan ku furay xilli uu ka soo baxay salaadii maqrib ee xalay dadaalo lagu doonay in lagu badbaadiyo suldaanka ayaa aysan suurto gelin waxaana uu geeriyooday xilli qalin lagu sameeyay sida ilo wareedyo ku soo Kismaayo ay ku waramayaan suldaanka ayaa waxa faahfaahinta lagu helayaa in dilkiisa loo adeegsaday qori AK-47 sida aan ka soo xiganay dad ku sugan magaalada Kismaayo isla markaana ay sidoo kale ku waramayaan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dilka oday dhaqameedkan waxa uu imaanayaa xilli aad loo hadal hayo dhaqdhaqaaqyada ka jira magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada maamulka Jubbaland la isku hayo sidoo kale tirada iyo habka loo soo xulay odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada Jubbaland suldaanka la dilayna waxa xogta lagu helayaa inuu ka mid yahay tiro odayaal ah oo aad uga soo horjeeda sida haatan uu wax ku wado madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland hadii aan eegno Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markan waxa uu aad uga cabsi qabaa talaabo ay qaado dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa doonaya inuu mar kale ku soo laabto kursiga xilligan uu ku fadhiyo ee xilka madaxweyne ee Jubbaland waxaana uu tartan adag kala kulmaya musharaxiin kuwaas oo Muqdisho iyo Nairobi ka kala baxay hase ahaatee tallaabooyin uu qaaday toddobaadadii maalmihii u dambeeyay ayaa ay u suurta gashay in magaalada inta badan ay musharaxiinta dib uga laabtaan waa Kismaayo isla markaana ay si howlgalaan guddiga doorashada ee Axmed Madoobe aad u taageersan sida lagu xanto Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka baqayaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya oo adeegsanaysa taageerada beesha caalamka ay culays markan saarto doorashada maamulkiisa isagoo ka cabsi qaba in magaalada Kismaayo lagu tago awood ciidan isla markaana meesha laga saaro Axmed Madoobe ayaa cabsida ugu badan ee uu qabo waxa ay tahay in dawladda federaalka mas'uuliyiin ka socota gaar ahaan kuwa xukuumadda ay tagaan magaalada Kismaayo iyaga oo wata ciidamada amisom ka tirsan halkaasi oo uu ka cabsi qabo in ay tallaabo qaadaan waa in ay soo xiraan ama ay awood u adeegsadaan doorashada oo musharaxiin dhowra iyo odayaasha dhaqankuba ay dawladda federaalka ugu baaqayaan inay faragelin ku sameyso maamulka Jubbaland waxa xusid mudan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo kamid ah musharaxiinta xilka madaxweyne ee Jubbaland doonaya isla markaana xukuumadda Soomaaliya ka tirsan cabsi awgeed ayuu isaguna uga baxday magaalada Kismaayo waxaana uu yiri waxaan ka baqayay in dagaal uu magaalada ka dhaco marka aan tago dhinaca kalena galmudug hadii aan eegno shirkadii heshiisiinta maamulka galmudug ayaa lagu soo waramayaa in shuruud adag lagu xiray waraysi ay idaacada kulmiye ee Muqdisho ay siiyeen xubnaha ka tirsan guddiga qabanqaabinaya shirkadii heshiisiinta galmudug ee la doonayay in Dhuusamareeb lagu qabto ayaa waxa ay ku sheegeen in shirka qabanqaabadiisu ay marayso meel wanaagsan waxaana ay shuruud uga dhigeen in ilaa iyo ciidanka ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay tagaan magaalada Dhuusamareeb isla markaana amniga la wareegaan aanu halkaasi shirka qabsoomi karin shardiga ayaa Axmed adag oo waxa isku haya madaxda maamulka galmudug ee markii hore ka tirsanaa ururkii Ahlus Sunna iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya guddiga qabanqaabinaya shirka ayaa waxa xusid mudan in ay safarro ku tageen deegaano ka tirsan galmudug kuwaas oo odayaasha dhaqanka qaarkood ay ku qanciyeen in ay ka qayb galaan shirkadii heshiisiinta ee qabanqaabadiisu ay meel dhexe marayso halka odayaasha qaar ee deegaanada galmudugna ay ka soo horjeesteen ka qaybgalka shirka la qabanqaabinayo ee dib heshiisiinta galmudug lana rabo in Dhuusamareeb lagu qabto
Puntland maanta waxay u dabaaldegaysaa 21 sano guurada markii maamulkaasi dhidibada loo taagay sanad waliba marka la gaaro maanta oo kale 1 bisha Agoosto ama bisha 8aad waxa maamulka Puntland ay u dabaaldegaan sanad guurada ka soo wareegato markii maamulkaasi dhidibada loo taagay oo ay noqdeen maamul federaal ah oo dhisan. Puntland ayaa xilligan deegaanada maamulkaasi ka kooban yahay sida aad muuqaalada ku arkaysaa waxaa ka soconaya mashxarado iyo dabaaldega ugu ballaaran waxa uu ka soconaya magaalada Garowe ee caasimadda u ah maamulka Puntland waxa imaanaysaa midani iyadoo sanadkan maamulka Puntland oo ka tarinayo Saciid Cabdilaahi Dani oo muddo dhowr bilood ah haya xilka madaxweyne ee maamulkaasi Puntland. sanadkan ayaa musharaxiintu qaarkood waxay ahaayeen kuwa aad u badan oo deegaanada kala duwan ee maamulka Puntland ka sameeyay dowlatus iyo sidoo kale ololaha doorashooyinkooda midda ay sugayeen ayaa maanta oo kale 1 bisha Agoosto oo ay u dabaaldegayaan 21 sano oo ka soo wareegtay markii maamulkaasi uu noqday maamul federaal ah oo taagan. Puntland waxa lagu tilmaamay inay tahay hooyada federaalka oo marka laga soo tago Somaliland ay tahay maamulkii horeeyay ee bilaabay nidaamka federaalka ee maanta inta badan dalka ka howlgala. muddo kadibna hotelkii Dusit D2 ee Kenya ku yaala isla markaana Al-Shabaab ay weerareen bishii January ee sanadkan aynu ku jirno ayaa lagu soo warramay in dib loo furay. Hotel Dusit D2 ku yaala magaalada Nairobi ayaa shalay dib loo furay markii uu xirnaa muddo 6 bilood ah kadib markii weerar ay sheegteen kooxda Al-Shabaab lagu dilay 21 ruux. hotelka ayaa dayactir iyo dib u dhis xoog leh lagu sameeyay kadib burburkii ka soo gaaray January 15 weerarkii ay ku qaadeen Al-Shabaab. milkiilayaasha hotelka ayaa waxa ay sheegeen in dib u dhiska lagu sameeyay hotelka ay qayb ka tahay tababar la siiyay shaqaalaha kuwaas oo ay ka mid yihiin sugidda ammaanka. kadib weerarkii lagu qaaday hotelkan ayaa waxa xabsiga la dhigay dad lagu eedeeyay inay fududeeyeen weerarka iyaga oo wajahaya dambi argagixisonimo ah. hase yeeshee dhammaan dadkii weerarka geystay oo la sheegay in ay gaarayeen 5 qof ayaa lagu dhex dilay hotelka iyadoo ciidamada ammaanka ee Kenya ay saacado badan xilligaasi ka dhex dagaalamayeen hotelka. markana daawadayaal hadii aan eegno intii xalay la socotay Somali channel-kan waxa aan soo dhignay muuqaal ku saabsan ama war ku aadan ajnabi shalay lagu maxkamadeeyay magaalada Muqdisho. faahfaahinta laga helay ajnabigaasi ayaa waxa ay tahay in uu dhashay dalka UK isla markaana lagu soo eedeeyay in uu qalqal geliyay amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. su'aashu waxay ka taagan tahay maxaa ninkan ajnabiga ah loo soo taagay iyadoo hub inuu garoonka la galay lagu haysto maxkamad madani ah oo aan loo soo taagin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. sidoo kale waxay su'aali ka imaaday oo markan ajnabigan la soo maxkamadeeyay ay su'aashu noqotay xaguu ku dambeeyay ajnabigii midkan ka horeeyay Ingiriiska isagoo u dhashay isla markaana laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho laguna xiray xabsiga dhexe ee Xamar. ajnabigan ma ahan kii dhowr bilood ka hor ay ciidamada dowladda federaalka ah ka qabteen garoonka diyaaradaha hase ahaatee midkan waxaa la qabtay 6 bishan iyadoo lagu haysto qalqalgelinta amniga garoonka oo lagu soo eedeeyay inuu hub la dhexgalay gudaha garoonka. midowga Yurubna waxa ay markan dhimayaan mushaarka ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya. ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa mushaarkooda inta badan waxa bixiya midowga Yurub waxaana ay war ay soo saareen ku sheegeen in 1 bishan maanta ah ee Agoosto uu dhaqangalayo kala bar in ay dhimeen mushaarka ay siinayeen ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga. qodobada caalamiga hadii aan eegna 130 sano jir ayaa sanadkan waxa uu ka qayb noqonaya malaayiinta xaramka ama magaalada barakaysan tagay ee xajinaysa. oday 130 sano jir ah oo u dhashay dalka Indonesia ayaa ka mid noqday xaajiyaasha sanadkan gudanaya waajibaadka xajka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sacuudiga Carabiga. Samri oo la rumaysan yahay inuu yahay qofkii ugu da'da weynaa ee abid xajiya ayaa waxa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiga. qofkii ugu da'da weynaa ee hore u xajiyay ayaa waxa ay ahayd Ibn Mariya Marghani Mohammed oo 104 sano jir ahayd kana soo jeeday dalka Indonesia taas oo xajisay 2017. haddii si rasmi ah lagu aqoonsado Samir inuu yahay 130 sano jir ayaa waxa uu ka mid noqonayaa dadkii ugu cimri dheeraa caalamka ee abid soo jiray waxaana ay ahayd qofkii hore ugu duqsanaa ee caalamka Jean Todt oo geeriyootay iyadoo 122 sano jir ahayd. warbaahinta dalka Mareykanka oo soo xiganaysa ila sirdoon ayaa ku waramaysa in uu dhintay wiil uu dhalay hogaamiyihii Al-Qaacida Osama bin Laden kaas oo magaciisa lagu sheegay Hamza bin Laden. warbaahinta NBC ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta aysan dhimashada Hamza ka bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabka uu dhintay iyo halka uu ku dhintay.
Xamza bin Laden oo da'diisu lagu qiyaasay 30 sano ayaa dad badan waxay arkayeen inuu yahay qofka bedeli kara xilkii uu aabihii ka hayay dhaqdhaqaaqa ururka Al-Qaacida. sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii uu shacabka Carbeed ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan, waxaana dowladda Sacuudiga ay kala laabatay dhalashada dalkaas. dowladda Mareykanka ayaa sanadkii hore sheegtay in lacag dhan $1 milyan ay siin doonto qofka soo sheega halka uu ku sugan yahay Xamza. sanadihii dambe wuxuu soo duubay codad iyo muuqaallo uu qoliyaha taageersan uga codsanayo in ay weeraraan Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka si ay ugu aaraan dilkii aabihii. Osama bin Laden ayaa sanadkii 2011 waxaa dalka Pakistan ku dilay ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa Mareykanka.